مشاعيق waaweyn علماء diin qaybaha kala duwan ee bulshada reer Gurceel ayaa ka qayb galay xaflad lagu weyneynaya habeenka u dhashay xabiibkeena Maxamed Naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee oo xalay lagu qabtay miska weyn ee jaamacada degmada Gurceel mashaayiqda ka soo qayb gashay xafladani waxaa kamid ah Sheekh Beledka degmada Gurceel Sheekh Maxamed Jaamac Yare Sheekh Cabdikariin Maxamed Barre iyo sidoo kale Sheekh Cabdikariin Maxamed Warsame علماء diin kale iyo boqolaal kamid ah bulshada reer Gurceel ayaa ka soo qayb galay xafladani oo xalay lagu qabtay miska jaamacada degmada Gurceel waxaa soo xaadiray xafladan boqolaal dadweynaha si u dhageystaan siirada xabiibkeena Maxamed Naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee furitaanka aayadaha Qur'aanka kadib waxaa la soo jeediyay qasiidooyin nabi amaan ah Sheekh Cabdikariin Maxamed Barre iyo sidoo kale Sheekh Cabdikariin Maxamed Warsame ayaa si weyn uga sheekeeyay waxyaabaha ay bishaan uga dhigan tahay guud ahaan ummadda muslimiinta ah ummadan Muxamadiyada ilaahay nasiib wanaagsan buu siiyay qofkii mu'mina oo ilaahay waxdaaniyadiisa rumeeyay oo nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam risaaladiisa rumeeyay waxa weeye xarig dheer ayuu haystaa xarig adag ayuu haystaa kuwa ilaahay maaragtay adduunyadana waafajiyay aakhirana ku dhintay Allah naga yeelo sifooyinkaas ayuu leeyahay nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam de makhluuq waaye ilaahay abuuray oo aadam iyo hooyo aab ay dhaleen oo wax cuna oo wax cabba oo hurda laakiin muxuu yahay hadee makhluuqaadka ka midka u fadli badan waxaa kamida inaad jacaylkiisa badiso oo mar walba qalbigaaga oo shaaqil ku noqdo waxaa ogtihiin ninkii nabiga sallallahu alayhi wasallam yiri awqaadaydo dhan baan ka dhigayaa ugu dambeyntii muxuu yiri murugtaadii iyo kurbadaada dhan baa laga kaafinayaa sida marka roob la'aanta aan uga badbaadno abaarta aan uga badbaadno qalbiga qallalan aan uga badbaadno maxaan ku raadayay waxaan u baahanahay inaan mar walba ku soo celcelino nabiga xuskiisa sallallahu alayhi wasallam inaynan u dhagajabin marnaba kuwa iska qaylinaya iyaga keliyana ma ahan qofku shaydaanku insina wuu noqdaa shaydaankan caadigaana wuu noqdaa quraanka inoo marqaati furayo shayaadiinul insi wal jinni yuuhi ba'dhum ila ba'd marka waa shaydaan insi ah oo damaciisu yahay inuu inaga fogeeyo nabiga sallallahu alayhi wasallam ugu dambeyn Sheekh Maxamed Jaamac Yare oo ah Sheekh Beledka degmada Gurceel ayaa soo gabagabiyay xafladani asagoo soo jeediyay khudbad taabanaysa dhinacyo badan si gaarana waxa uu uga hadlay dhibaatooyinka ay argagixisada ka wadaan guud ahaan dalka oo dhan aqoontii masiixiyada ahayd ee saddexda ila ahayd in marka shaarka islaamka loo hubiyo ila wadada hadwahab hadmu diin bismi diin diin kale dibciisa lagu dumiyo wadadalkiisa garo marka quraankii baa la barayaa kutubaa la akhrinayaa kutubadii maxay yihiin waa usuuliyada loo bilaabay Soomaha marka maxaa laga bilaabay saddex aqiido ee subxaan saddex tawxiid oo tawxiid uluhiyya tawxiid rububiyya tawxiid sifaat hada mid farada marka qaata la sheegayba ku soo daraaqas ku soo darsadeen war waxaasi waxa meesha laga soo minguri ma taqaaniin ya ciisa ilaahun wa maryam ilaahun الله ثالث ثلاثة إلى المسيحية دي مكت تي نفتدي وحلا ربع إن شاء الله لا يريقه شر نوض صاره وايو هذا معنى التوحيد ما قفنا قوم بجد عليه حجرني قف عربي جرني معنى التوحيد أنا قولني يا شرا أحمد فارح محمد SMST في Gurceel